kulan wacan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Balance Media. Wararkan maanta idinkugu hayno qodobadiisa waxaa ka mid ah 7 qof oo lagu dilay agaarka garoonka diyaaradaha ee Kabul. Madaxweyne Vladimir Putin oo diiday qorshaha reer galbeedka ee Afghanistan. nin Soomaali ah oo lagu gowracay magaalada London. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. Britain oo sheegtay in 7 qof oo shacab ah lagu dilay khalalaaso sabtidii ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo dad badan ay ku xumeen iyagoo isku dayay inay gaaraan garoonka si looga qaado. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa la xarbinayay inay la tacaalaan kumanaanka qof ee isugu jira ajaanibta iyo shacabka Afghanistaanta ee ka cararayo dalkaasi kadib markii ay xukuumadda la wareegtay Taliban. waxaan maskaxda ku haynaa qoyskii 7aad ee ku dhintay Kabul. waxaa sidaas yiri afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Britain isagoo oo aan faahfaahin ka bixinin sida ay wax u dhaceen. telefishinka Sky News ee Britain ayaa baahiyay muuqaalada 3 ka mid ah midadka oo yaala dibadda garoonka. xaaladda waa mid aad caqabad u leh, waxaan isku dayaynaa wax kasta oo aan awoodno si aan u xakameeno ugana dhigno mid amni ah oo sugan sida ugu macquulsan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Britain. dhinaca kale, kooxda Taliban ayaa ku eedeynaysa Mareykanka inay mas'uuliyiin ka yihiin qaska ka jira garoonka diyaaradaha ee Kabul. Mareykanka oo awood aan ognahay leh waxay ku guuldareysteen in ay kala dambeyn ka hirgeliyaan garoonka nabadda iyo xasiloonida ayaa ka jirta dhammaan dalalka intiisa kale. hase yeeshee jahwareer ayaa ka taagan garoonka. waxaa sidaas yiri Amir Khan Muttaqi oo ah sarkaal ka tirsan Taliban ayaa haatan kala dambeyn ku soo rogtay ayagoo rasaas kor u riday kuna khasbay shacabka inay safaf galaan. qaar ka mid ah dad goobjoogayaal ah ayaa laga soo xigtay in amarka Taliban uu shaqeeyay, dadkuna ay si nabad ugu jiraan safaf dheer oo gala garoonka diyaaradaha ee Kabul. nin Soomaali ah ayaa si arxan daro ah shalay gelinkii dambe loogu dilay magaalada London xilli ay sare u kacayso dilalka magaalada London loogu geysto Soomaalida. dilkan oo loo adeegsaday mindi ayaa ka dhacay xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay oo lagu magacaabo Leyd, sida ay goobjoogayaal arkayeen u xaqiijiyeen warbaahinta. kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay in marxuumka oo da'diisu lagu qiyaasay 30 jir oo ay qoorta ay kaga gooyeen mindida kadibna ay goobta iskaga baxeen dadkii falkaasi geystay. waxaa kadib goobta soo gaaray kooxaha gurmadka degdeg ah oo ula cararay isbitaalka ka agdhow goobta, halkaasi oo ay nafta kaga baxday. booliska ayaa weli shaaca ka qaadin magaca marxuumka. London ayaa caan ku ah dilalka loo adeegsado mindiyaha iyadoo oo inta badan lagu dilo ama ay isku dilaan dhalinyaro Soomaaliyeed ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 25 jir. weerarkan ayuu wuxuu kaga duwan yahay weeraradii hore in lagu beegsan jiray nin da ahaan weyn. dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay waxaa London ka dhacay dilal ugu yaraan 6 qof oo dhammaantood loo adeegsaday mindi. madaxweyne Vladimir Putin ayaa xadii diiday fikrad ku saabsan in dadka laga soo daadgureeyo Afghanistan la geeyo dalalka u dhow Ruushka, isagoo sheegay inaysan doonaynin in mintidiin iska dhigaan qaxooti ay halkaasi tagaan. Moscow ayaa xiriir wanaagsan la leh Taliban, waxayna mintidiinta uu ka hadlayo loola jeedaa kuwa Al-Qaacida. Putin ayaa cambaarayay fikradda dalalka reer galbeedka qaarkood oo ay qaxootiga Afghanistan dib ugu dejinayaan uguna sameynayaan dalalka dariska la ah Ruushka fiisaha ay ku galayaan Mareykanka iyo Yurub inta looga diyaarinayo. Putin ayaa cambaarayay fikradda dalalka reer galbeedka qaarkood ay qaxootiga Afghanistan dib ugu dejin ugu sameynayaan dalalka dariska la ah ee bartamaha Aasiya inta fiisaha ay ku galayaan Yurubka iyo Mareykanka looga diyaarinayo. taasi ma waxa uu macnaheedu yahay in iyaga oo aan fiisaha haysanin la geen karo dalalkaasi iyo dariskeena, halka reer galbeedka aysan doonaynin inay qaadaan fiisa la'aan, ayuu yiri madaxweyne Putin sida ay ka soo xigteen wakaaladda wararka Ruushka ee TASS. maxay dhibaatadani ugu xalinayaan hab bahdilaad ah, ayuu yiri. dowladda Mareykanka ayaa wadahadallo sir ah la yeelatay dhowr dal iyadoo isku dayaysa inay xoojiso heshiiska hoy loogu sameynayo Afghaaniyiinta la shaqeynayay dowladda Mareykanka. Putin ayaa sheegay in Ruushka oo safar bilaa fiisaha u ogol dadka dalalkii hore uga tirsanaa Sovietka ee bartamaha Aasiya, taasi oo ka soo horjeedo. ma doonayno in mintidiin aan halkan ku aragno ayaga oo iska qarinaya qaxootiga, ayuu yiri Putin. halka dalalka reer galbeedka qaarkood ay la daaladhacayaan inay dad ka soo daadgurayaan Afghanistan ayaa Ruushka waxay Taliban ku amaantay inay soo celisay kala dambeyntii dalka kadib markii ay la wareegtay
wareegtay. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergio Lavrov ayaa sheegay in hogaamiyayaasha Taliban ilaa haatan ka soo baxeen ballanqaadkoodii. Waxaan aragnaa in hadalkii Taliban ee ahaa inay joojinayaan ficilada dagaalka ayna cafis ugu fidinayaan kuwa ka soo horjeeda la fuliyay, ayuu yiri Lavrov. Daawadayaal ayaan kusoo afmeeraya war wixii dal iyo dibadda aan idinkaga haynay. Warka waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. Intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.